part 2 qaybtii labaad ee chapterkeena ayaan anbaqaadeynaa sida ayaan ku soconeynaa koorsigana waa koorsi rabo inaan dhamaystirno insha Allah biidin Ilaahi albaari oo ay ka bagdaan ardayda dhammaan jaamacadaha dhigto wax alaal wixii commentay ama fikir ah waxaad nagu soo hagaajin kartaan cinwaanka halka shaashada uu idinka muuqdo oo qaybta chapterka kuwaad aad ku aragteen haddana waxaan guda galeynaa whole numbers sidee la iskugu daraa adding sugeynta whole numbers tirooyinka eedan markii la sugeynayo steps ayaan maraynaa ardaygu waxaa la rabaa in wax lagu baro step si uusan jaranjarada aga dhicin example ayaan ku soo qaadanaynaa waxaad arki jirtay laba tiro la iskor saaray aad arki jirtay hadda waxaad arki doontaa afar tiro la iskor saaro oo la isku daro markaan leenahay waxaan waa businesska markuu xisaab uu dejinayo wuxuu dejiyay hal xaba maan tiro badan oo isku soo dardaraa waxaa laga yaabaa bishii hore inay intaan u gadmatay bishii kale inay intaan u gadmatay bishii kale inay intaan u galmatay bishii kale intaan u gadmatay kadibna waa isku soo dardarsanaya xisaabta elementary waxaa laga yaabaa inaad ku baratay laba la isku daraayo tiradan oo lagu daro tiradan ayaad ku aragtay okay markii sidaa ay dhacdo stepska marin waxaa ka mid ah stepka koowaad wuxuu leeyahay align the numbers according to their place value align the numbers isku toos horta lambarada isku toos according to their place value adoo u fiirinaya mid kasta godkiisa waa isku toosina fiir tooda waxaan ku toosinay 3 waxaan ku toosinay 4 waxaan ku toosinay 4 kalanta alignment exana Allah sheegina isku toosisid wax alaal wixii isku godayna isku toosid because of 2 iyo 3 maxaa isku toosid 2 iyo 3 waxaa la isku dis labadaba waa axad ama god koowaad ay ku jiraan 2 waa koowaad ama waa ones 3 waa ones 4 waa ones 4 kalanta waa ones 6 kan waa tens waa god tobanaad koodan waxay noqonaysaa god tobanaad 2dan waxay noqonaysaa god tobanaad 9 kan wuxuu noqonayaa god tobanaad tobanaadna isku toosan yihiin 3 waa 100 god boqolaad 9 kan kalanta waa boqolaad 9 kan kalanta waa boqolaad 5 kan kalanta waa boqolaad waa isku aadan ayagan okay thousands no isku aadan ko wixii kuna isku aadan 1 waa 1000 waa kumaad 5 waa kumaad 8 waa kumaad 6 waa kumaad wixii kumaad ayadana waa isku toosan yihiin ayadoo taas ay jiraan kadib stepka koowaad waa ka soo baxday stepkood waxa mid kasta qiimihiisa ama value ku aad wixii koowaad isku aadi wixii tobanaad isku aadi wixii boqolaad isku aadi wixii kumaadna isku aadi stepka labaad maxaan sameeynaa marka add the unities to column write the sum below the column if the sum is more than 9 write the unit digits and carry the 10 digit stepkan labaad wuxuu leeyahay add the unit columns tirooyinka column ila rows column waa kala taqaan columns waa kuwa taagan joogan 3 waa joog laakiin rows marka la waa raxanta kuwan waa row 1 row 2 row 3 row 4 column waxa way saana loo fiina column 1 column 2 column 3 column 4 marka wuxuu ku dhahay add the unit columns columnyada isku soo dardar columnyada marka waxa waa kuwan jooga ah jooggaasa column isku soo dardar and write waxaad qortaa the sum below wadartoodan hoos ku qor qaybta markay isku soo dardartid wixii soo baxo wadartooda qaybtaas hoosa ku qoraysaa ma fahamta and write the sum below hoos ku qor if the sum hadii wadarta is more than 9 sagaal iyo wixii ka badan ay tahay wadartii marka isku soo dardartay sagaal iyo wixii ka badan noqdeen sagaal hadii tahay wadartaas hoos la dhigaa bas مثلا waa isku soo dardartay sagaal ku soo bax hoos dhigaysaa bas tan kale u gudbeysaa marka column labaad u gudbeysaa laakiin hadii tahay wadarta wax sagaal ka badan ay noqotay 10 camlad 11 20 30 40 saasay noqotay sagaal wixii ka badan ay noqoto 10 ay noqotay ama 11 ilaa laga gaaro ilaa ma sha Allah inta laga gaaro maxaa sameeynaa marka write the unit digit and the carry waxa digitka fiinaysa marka kan digitka oo unitka ama kan koowaadka ayaad dhaafaysaa kadibna an carry waxaad qaadaysaa the 10 digits tobanaadka ayaa u qaadaysaa mesela waxa la wadaa hadii tirada 10 noqoto 10 kooda iyo 0 da koowaada 0 da dhigaysaa wanka qaadaysaa hadii 19 tahay 19 okay 19 ka iyo wanka yaa koowaada 9 kan wuxuu noqonaa koowaad 1 kan wuxuu noqonaa 10
saasa u qaadaysaa hadday 20 tahayna waa isku meeshii un 20 0da wuxuu noqonayaa koowaad 2dan wuxuu noqonayaa tobanaad aad markasta tirada tobanaadka ayaa qaadaysaa tirada tobanaadka ayaad markasta qaadaysaa tirada koowaadkana waad ka tegaysaa saas uu leeyahay laakiin waa inuu 9 uu ka bataa 9 wixii ka bato tirooyinka koowaadka waa dhigaysaa tirada tobanaadka ayaa qaadaysaa si kale haddaan kugu dhigo haddii 10 ay noqoto ilaa 19 laga gaaro hadba wanka ayaa wuxuu noqonaa markasta tens oo noqonaa 19 9ku waa koowaad 18 8 waa koowaad 17 7 waa koowaad wankaas markasta qaadaysaa 20 markii laga soo gudbo 0da waxay noqonaysaa koowaad 2da waxay noqonaysaa tobanaad 25 shanta waxay noqonaysaa koowaad 2da waxay noqonaysaa tobanaad 30 ka soo qaad 31 kooda waa koowaad 3dan waxay noqonaysaa tobanaad hadba aad markasta tobanaad godka tobanaadka ayaad qaadaysaa step 3 muxuu leeyahay moving soorar to the left ku bidax ku jiro repeat step 2 na ku celi mid kasta saasa ku wadaysa macnaha marka saasa samee tusaalahaan oo kale aad fiiri 2 + 3 5 5 + 4 9 9 + 4 13 13 yaa koowaad yaa tobanaad saddexda koowaada koodana waxay noqonaysaa tobanaad saddexdii waa dhigtay oo waa kana waa iska reebay oo bilowgii aan ku qoray because of 13 is more than 9 9 ay ka badan tahay hadday 9 ka badan tahay shiisku wuxuu ahaa unitka ama koowaadka in la dhigo tobanaadkan la qaado 1 ayaan keeri 1 aan qaaday isla wankii tirada asaga ka bilaabo oo waxaa leedahay 1 + 6 7 7 + 8 okay sorry 1 + 6 7 7 + 1 8 8 + 2 10 10 + 9 19 heshiiska muxuu ahay tobanaadka inaan markasta qaaday 9 waa ka tagay oo koowaad uu ahaa asaga waxaan qaatay godkii tobanaadkan qaatay 1 la ka soo qaadaysa asaga 10 ma dheysay 1 baa ka soo qaadaysa markii hore uu ahaa 1 + 3 4 4 + 9 13 13 + 9 22 22 + 5 27 7 aad dhiganaysaa sababta 27 yaa koowaad 7 aa koowaad aad kan laftiga fiinaysaa laftiga 7 marka midka right-ka ka jiro marka 7 waxay noqonaysaa koowaad 2dan waxay noqonaysaa tobanaad 2 okay 2 aan qaadanaynaa markaan 2 lagu daro hal aa leedahay 3 3 lagu daro 5 8 8 lagu daro 8 16 16 lagu daray 22 marka 22 waa la wada dhigtay because of 2 la dhigan lahay 2 la qaadan lahaa 2 marka meel la geeyo ma lahan saa daraadeed waa la wada dhigayaa meeshana marka waxaa moving to the left kuwa oo bidixda ayaa la move gareynayaa and repeat step 2 aan lagu celcelinayaa until all place value are added ilaa la isku dardaro marka saas waaye markas macnaha saas waaye 3 ga hadda fiiri inta lagay waa la soo move gareeyay waa ku dardar saas waa ilaa macnaha wuxuu ka wadaa qaybta marka isku soo dardartid qaybtaas u gudub tanna isku soo dardar tan kale u gudub marka ugu dambeysana wada dhigo okay isu geyntu waa qaabkaas waa tan qaybtan ka hadlayna marka estimate addition by rounding all the way waa estimate gareynaya qiyaas waa rounding sameynaysa okay labada example marka isku fiir si fudud tii horta aan ka shaqeyno waa tan tii horta qaabkan aan kaga shaqeyno oo waxa loo soo baxday sorry 22,793 haddii xisaabtan buuxilana la dhaho waxaan buuxinay 22 ka soo buux hadana la tuuda ayaan buuxin karnaa tuuda markaan buuxinayna tirada midigta ka jira fiir 5 ka badan tahay hawa 5 haday ka badan tahay maxaa ka soo qaadayna wana ka soo qaadayna maxaan ku dareynaa tii aan select gareysnay aan dooranay inaan soo buuxino ku dareynaa oo 23 noqonaysa the other ama the right things kuwa midigta jira maxaa laga dhahay 000 saas waa ka dhigi karnaa waa tan isku meeshay ama waxaad dhaga kartaa 1362 aan soo buuxino oo tirada kumaadkan soo buuxinayna oo the left most ayaan soo buuxinaa midda ugu dambayso midigta jirto 1 waa marka 1 maadaama ay tahay buuxis markaan fiinay the right one aan ka fiinayna midka midigta ka xigo yaa midigta ka cay 3 marka 5 ma dhan tahay oo ma ka badan tahay waa maya haddii saas tahay wax change ama sameynayno inta kale waa iska drop gareynayna 1000 ay noqonaysaa okay 5000 aydan markaan rabno inaan buuxino
5009 waa buuxin kartaa 6 aan kasoo qaadina 6000 8 9 waa buuxin kartaa Soomaan 9000 inta kale iska drop garay 65 waa buuxin kartaa kusoo dar 7000 kadibna 23 final answer ka saasoo noqon kara saana waa dhigi kartaa saana waa dhigi kartaa final answer could have more than one non-zero since total is not rounded all the way haddii la round gareyn waa kana haddii la round gareyn waa kana haddii tan round gareyn sidaan bay noqonaysaa subtracting whole numbers kala goynta tirooyinka idin markii hore hadda waa isku soo darnimaano haddana waa kala goynayna ayadana waa isku step 3 steps ka maraysa step kowaad waxa align the minuet and subtracting it by the place value the minuet kuwa la kala goonayo and subtracting it iyo kuwa laga goonayo the place value isku aad saas waa macnaha minuet kan waa tirooyinka laga jarayo kuwa la jar doono subtracting it waxa waaye kuwa laga goonayo difference-gana waxa waaye result-ga noo soo bax ereyada saasama minuet waa tirada la kala jarayo subtracting tirada laga jarayo minuet tirada la kala jarayo subtracting tirada laga jarayo difference waxa soo baxa kadib check-ka loo sameeynaa oo inay sax tahay in qalad tahay check-ka kaas loo sameeynaa okay align marka waxa isku aadana the minuet tirada la kala jarayo waxaad ku aadinaysaa the subtracting tirada laga jarayo the place value adoo fiirinaysa markaasoo place value kama tagaysido wixii koowaad isku aadi wixii tobanaadna isku aadi wixii boqolaadna isku aadi began below the subtraction kala goynta below with the unit digits midka ku aadan kala goyntiisa below write the difference wixii soo baxana below the column hoostiisa ku qor if the unit is digit in the minuet is smaller than the digit is subtracting borrow one from the tens digit in the minuet qodobkaas waa qodob aad u muhiimsan haddii tirada la kala jarayo ay yaraato oo ay ka badnaato tirada laga jarayo مثلا tiradii la kala jaraayay ayaa yaraatay waxaa weynaaday tiradii laga jaraayay maxaan sameynayaa waan soo deensanayaa waxaana ka soo deensanayaa godka ku xiga oo bidix ka jira ayaan waan ka soo deensanayaa ama tennis ama god tobanaadka ayaan ka soo deensanayaa haddii god tobanaadka naftigiis markaan ka soo deensado oo wili oo ama zero uu yahay oo deen uusan isiin karin مثلا deenaan kaga bahday oo wana rab inaan ka soo deenso asagaan bahayninbo waxaan sii aadaa godka kale inta ku seexigo si kale aan u dhahno haddii tirada kor ku xusan oo tiradii la kala gooynaayay ah ay ka yaraato tiradii laga jar lahaa ama tirada hoos ku qoran tii hoose ayaa yaraatay waxaa weynaaday tii kore ayaa yaraatay oo waxaa weynaatay tii hoose adigoo waxba haysan مثلا adigoo eber ah oo waxba haysanin haddii 5 hoos ay ku taalo 5 keen lagu dhaho ma keeni karto waa inaad deen raadisay noqonaysaa marka ma kala jarto tiradaas maxaan sameynayaa baarowina sameeyna deen marka sharcigan saan waa if the unit digit haddii tirooyinkan oo meesha ku qosan oo minuet-ka ama tiradii la kala gooynayay ay yaraato tiradii laga jar lahaa ay ka yaraato baarowina la sameynaa oo waxbaa la soo deensanayaa hala soo deensanaysaa halkan waxaa ka soo deensanaysaa tirada kuwa xigta ayaa ka soo deensanaysaa taas ka weysid midda kale saasaas soconaysaa marka sharcigan saas oo qoraya okay moving to the left qaybta hoos kaga taga marka wixii kuu soo baxo and repeat step 2 na ku celi marka kala jarjartid wixii kuu soo baxo hoos kaga tag step 2 isku geynti sidii u waday marka okay marka qaybta waxa uu noqonaa minuet qaybta waxa uu noqonaa subtracting okay 0 ka jar waa 0 because of minuet-ka iyo subtracting waa la kala jar kara labadaba waa 0 hada ibr hada laga jar waa ibr marka 3 ka jar tan waa marka minuet-ki 3 ma ka jarantaa marka 3 adoo hays 6 ma keeni kartaa ma keeni kartid waa 3 ma ka jaranta maxaan sameeynaa marka minuet-ki yar maxaa badan subtracting-ga kii laga jar lahaa badan maxaan sameeynaa baarooyinka markaan sameeynaa wana soo deensanayaa wanka marka waxaan ka soo deensanayaa tirada igu xigta tirada gadaal ma aadayso hor un baa aadaysaa wankaan ka soo deensanayaa wanka markaan ka soo deensado halka uu ku siinayo 10 uu la mid yahay ogaaw
halka isku darka halka xabo lagu siinayo oo hal xabo la mid yahay kala goonta halka xabo lagu siinayo wuxuu la mid yahay 10 ayuu la mid yahay sidaa daraadeed meeshaan 3 ma dhayna waxaan leeyahay 13 marka 13 laga jaro 6 meeqay noqonaysaa 7 ay noqonaysaa kana waa 0 noqda haddii oo meeshaan 2 ay ahaan lahayd oo 1 laga deysan lahaa 13 1 waa soo dejinay maadaama 1 la uu yahay 1kiina uu saar 0 noqonaysaa marka meeshaan waxaa noo soo baxday 70 inuu sax yahay iyo in kale maxaa cadeynaa 70 noo soo qaad 60 laga jiro noo soo qaad tiradii hore ma soo laabatay 130 waa kan waa soo laabatay that's good waa sax markaa multiplying of whole numbers isku dhufashada tirooyinka edel isu geyntaan ka soo baxnay kala goyntaan ka soo baxnay isku dhufashada marowna qaybtaan noo xitaa jabtarkaasna halkaas ayaan ku soo gabagabeynayna kadibna waxaan noo bilaawanayaa jabtarkii labaad oo jabtar aad u xiiso badan asagana oo runtii aad u qiimo badan okay multiplying of whole numbers isku dhufashada jabtar isku dhufashada tirooyinka edel asana waxaa la maraa afartan stepka koowaad align the multiplicand and the multiplier at the right waxaa isku aadisaa multiplicand tirooyinka laisku dhufanayo iyo multiplier kuwa lagu dhufana isku aad horta godgod iskugu aad godgod waa iskugu aad ismaano مثلا 418 waxaan ku dhufanaynaa 52 this is multiplicand waa kuwa laisku dhufanayo waa kuwan multiplier kuwa lagu dhufana 52 lagu dhufana oo maxaa iskugu aadan sida godgodka midba godkiisaan ku aadin 8 waa kuwad 2 waa kuwad kan waa 10 kan waa 10 mid kasta godkiisaan ku aadin macnaha waxa la diidaa 52 in 42 ku aadisid taas la diiday mid kasta in godkiisa ku aadisid sharciga kuwa taas waa sharciga labaad multiplying the right digit of the multiplier with the right digit of the multiplicand keep the multiplying as you move left through the multiplicand multiplying ku dhufo the right digit ku midigta isku dhufo dhinaca midig ka soo bilaab marka isku dhufanaysa bidix ka soo bilaabin midigta ka soo bilaab bidixda ka bilaab 5 taas ka bilaabaysa maxaan ka bilaabaa marka midigan ka bilaaba marka waxa isku dhufanaysa midig ka bilaab okay of the multiplicand oo dhinac waxa ka bilaabaysa multiplicantiga kiisa midig multiplier ka midigiisa ayaa waxaan ku dhufanayaa isla midiga multiplicantigan ku dhufanaa lagu dhuftaha lagu macnaha lagu dhufshaha iyo lagu dhuftaha multiplicand iyo multiplier labadooda midig ayaa isku soo dhufanaysaa keep the multiplying as you move the left through the multiplicand saasa ku wadaysaa marka ma baan saddex wala your partial product qaybta ku soo baxday maxsuulka the right digit oo qaybta midigta ka soo baxda for the first digit is placed meesha ugu horeysa la dhigaa maxsuulka koowaad sida waxaa loo fiirinayaa oo godadka iskugu aadayna maxsuulka koowaad loo fiirinayaa midka koowaad la waa midka labaad ma loo fiirinaya oo fiir hadda maxsuulka noo soo bax intaana noo soo baxday 6kii koowaadka lagu toosiyay 3kii tobanaadka lagu aadiyay 8kii 100kii lagu aadiyay saas waa laakiin okay the first digit placed directly below kan koowaad toosa loo dhiganaa oo into multiplier that you use it to multiply continuous saasa ku sii wadaysaa step 2 iyo step 3 wadaysaa until multiplication process is complete ilaa aad ka dhameysid marka qaybta labaad mid kasta value-giisa ku aadinaysa maadaama kan oo midka koowaad uu yahay waa wada dhigayna hadda fiir 2 times 8 wuxuu noqonayaa 2 times 8 waa 16 6 aan dhigtay 1 aan qaatay 1ka marka waxaa lagu daraa 1ka gooni ah ku aad haddana waa wadaysaa 2 times 1 waa 2 1kii ku dar 3 2 times 4 isagana waa 8 okay marka intaas waa noo soo buuxsantay oo maadaama first digit ay tahay godkii koowaad ay tahay waa noo buuxsantay رام كنت رواش ما وحير ايضا جبتك وحير ايضا جبتك
okay marka midka ugu horeeya ama first digitka xagga multiplicationka ama ku dhufashada marka laga hadlaayo midka koowaad oo multiplier-ka ah multiplicand-ga markaa ku dhufatid result-ka kaaga soo baxo directly waxaa u dhigataa qaybta hoose 2 times 8 16 carry 1 2 times 1 marka ayada sida ku darto kale inta ma noqonayso oo ma noqonayso in tusaale ahaan oo kale inta 1 kaas in aad ma noqonayso ayadana